kursiga 19aad ee aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya ee soo socda ayaa waxa ku guuleystay Cali Jamac Jangeli sida warkan uu ku soo diray Salim Daahir oo ku sugan magaalada Garowe. doorashadani oo ay ku tartamayeen 4 musharax ayaa ugu dambeyntii waxa wareegii labaad ku guuleystay Axmed Jamac Jangeli oo hore u ahaa wasiirka hawlaha guud iyo gaadiidka iyo duulista hawada ee dawladda federaalka ee iminka waqtigeedu dhamaaday. /eber /halshan/bl oo dhubahante Axmed Garaad oo markii hore ay noqotay in muxuu ahaa lagu kala bixi waayay tartankii koowaad inay noqotay wareeg labaad la galo. wareegii labaad sidii aad ogeydeen waxa isku soo haray 2 musharax oo kala ah Jaamac Xasan Khaliif iyo musharax Cali Axmed Jamac Jangeli. waxay noqotay markii la tiriyay codadkii in Jaamac Xasan Khaliif uu helay 22 cod, Cali Axmed Jamac Jangeli uu helay 30 cod. tirada guud waxay noqotay 51 inta codeysay. guushu waxay ku raaxday oo xildhibaankii reerka dhulbaanta Axmed Garaad maanta noqday Cali Axmed Jamac Jangeli. wasiirka ayaa la kulmay markii uu soo dhamaaday doorashadu khudbadihii kadib waxaana uu hambalyo iyo mahadcelin u celiyay ergadii iyo guddiga doorashooyinka sidii hawluhu u socdeen. dareenkay waa dareen aad wanaagsan runtii Soomaaliya wax dooranaysa in ay maanta doorasho runtii aad u adag ka dhacday oo ay ergadii aniga dooratay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. ergadan u mahadnaqayaa ciidamada amniga guddiga doorashada iyo dhammaan warbaahinta iyo dadkii ummadda Soomaaliyeed u tabinayay. maanta waa maalin taariikhi oo runtii Soomaaliya ay wax dooranayso. mar weyn baynu samaynay in dariiqa lagu sii socdo oo dariiqaas inoo sahlo in aynu gaarsiino one man one vote halka qof walba inuu dooran karo qofku doonayo. gudoomiyaha guddiga doorashooyinka dadban ee Puntland Khaliif aw Cali ayaa isna dhankiisa weydiiyay sababaha ay u baaqatay kursigaani arrintiisu shalay isagoo sheegay in inaba aanay jirin wax cadaadis ah oo kaga yimid dhanka dhaqanka iyo hoggaanka sare ee Puntland. ma yaadeer waxa weeye wax cadaadis la yiraahdaa ma jiraan. annaga doorashada tani waa doorasho guddiga kan waa guddi madax bannaan. xilligaan annagu doorashada qabanayno, xilligaan cod ka bixinayno, xilliga ergada la diyaarinayo, registrationka xilliga uu soconayo, tababarka xilliga uu dhacayo waa wax jadwal ah oo annagu aan horay u dejinay. Maxamed Salim, Somali Cable TV, Garowe.